بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دموا سلام يا بلشدة صوماليات ميل أكوس كنتيمبا وعبد السلام جنتلمان بدنمك قرن بلشدة صوماليات وحن لا ميل أكوس كنتيمبا الله الرحمن كهيدن كراميو الله هيدن شرفه عاو وحن هالكن يدن كسوق بدبين دونا قضابو أي حكومة دينن intii muddada hayday jirtay ku talaabsatay oo xagga horumarka ay u qaaday runtii haddaanu nahay midnimo qaran ujeedada iyo aasaaska u taaganay waxa weeyaan bulshadeeda inaan u soo gudbino wixii wanaagsan ee wadankeega horumar ee ka socda sidoo kale bulshadana aanu farta ugu fiiqno mashaakilka iyo qoqobka iyo googoynta iyo dilka iyo dhibaatada cidda ku haysa iyo meesha laga soo alifo dhibaatooyinka Soomaaliya ka socda kow horta Soomaaliya intii imka xukuumadeena jirtay waxyaabaha guusha weyn ee noo soo hoytay waxa kamid ah hawadeeni oo Muqdisho laga maamuli doono gacantii Soomaaliya ku soo noqotay runtii qalabkii hawada lagu la soconayay lagu kontroolayna hadda gacanta lagu hayo sidoo kale waxa la socoteen jaamacadii weyneed ee ummadda ee Gahayr dhulkii dawladda oo ciidamadii ay banaynayaan oo loo rarayo meesha la yiraahdo Jawhar ciidamadii AMISOM ee naga haystay halkaasna haday tahay jaamacadihii dhulkii nagu ciriiriga ahaa oo waxyaabo badan oo ummadda Soomaaliyeed loogu adeegi doono waa bartaana insha Allah taala lagu qaban doona waxa kale aynu la soconaa sidoo sheegay wasiirkeena maaliyadda Master Bailey December marka la gaadho hadii Ilaahay nagu simo in ay dawladda Soomaaliya isku filnaan doonto ciidankeeda iyo mushaharkeeda ayadu ku filnaan doonto taasuna waa qodobada inoo soo hoyday ee horumarka xukuumadan intii jirtay sidoo kale amnigi oo isagana runtii xoog had iyo habeen baheegin dawladda nagu jirto siday amniga u xasilan lahayd horta waxa laga yaabaa qaar badan oo dadka kamid inay weydiiyaan yiraahdaan maxaa talo ay mucaarad iyo dhaliilo sheegaan walaalayaal waxaan dhaliilo sheegeen 30 sanadood waxaan ku soo jirnay maamul goboleed problem dhibaato bal yaa inoo sheegi kara maamul goboleed waxa uu inoo horumar aynu ka faa'iido waa taasoo maanta maamulka la yiraahdo Puntland waxaan la soconaa in suuqyadii waaweyn ay Boosaaso xidhan yihiin sixir bar daraadid oo ummadii maciishadii cirka lagu geeyay shaqo la'aan ay ka taagantay sidoo kale Hargeysa iyo Burco runtii dadkii imka waxay ku jiraan baynay baqtigaaba wax xalaalaba sixir baraka ka taagan iyo dhibaatada ka taagan ma aha walaalayaal inta yar qurbaha laga diro iyo dadkan meelahan boqolka dollar looga diraya ay noloshiiba inta ku soo koobaan war nolosha dadkii jilicsanaa baqti bay ku jiraan oo baabay ku jiraan walaalayaal 30 sanadood waxaan maqlaynay Soomaali dhibaato baa laga soo sheegay bal ninka quray ama maamulka quray la oranayo wanaag bay Soomaali soo kordhiyeen wanaga soo arkayna maanta Hargeysa iyo Burco iyo Waqooyiba dadkii oo ka soo abaaray ku habsadeen riiq reebay sidoo kale shuban biyood uga dambeeyay imikana sixir barahayo ay olole iyo mushxarad dad masaakiina baa la soo dibadda loo soo saarayaa waa kuwa walaalayaal kuwa wax allaala wax horumar oo inoo soo wadaan ma jiro horta qofka aadamiga waliba ninka waa inuu isweydiyo yaa kugu cadowa yaa saku nasteex Soomaali oo dhan waa inuu isweydiin horta yaa inoo cadow yaa inoo nasteex cadowga dibadda runtii waxay naga xumaa cadowga gudaha oo ay siyaasiyiinteena inoo geysteen dalalka dibadda iyo adduunyada inoo meegeysan runtii markaynu xaqiiqada dul istaagno waayo mas'uuliyiintaas ay ahayd inay xal keenaan way keeni kareen wax kasta waxay ka horeynayaan danta qaranka waxay ka horeysiinayaan walaalayaal personal interest dantooda bay ka fikirayaan dan ummadeed marnaba kama fikireen hadday ka fikirayaan waqti badan kuma qaadan lahayn ummadda isu keenaan waa kuwa waqooyi la waan jaraynaa gaalka ay labada qaybood ka sameeyay ummadii madaxa isu galiyay shacabse meel ay isku laayeen oo shacab isku qabsadeen ma jirto marka dhalinyarada waxaan leeyahay war aqoon baa baranaysan PhD aad qaadanaysaan master war qabiiladiina u baranaysan qarankiina aad u baranaysan dhalinyaro toosa oo dawladdiina babar istaaga oo wanaag ka shaqeeya oo ha u joojinina inta xun ee dib u dhaca iyo xanuunka iyo cuqdadu ay buux dhaafisay waxa kale oo iyana talaabo xagga horumarka loo qaaday ah baarlamaankeena iyo Britain hadii Ilaahay ka dhigo ku shiraya magaalada la yiraahdo Kismaayo Jubbada Hoose waxa weeyaan waa horumar runtii waxaan arkay qaar dhaliilayo leh kharashaad baa ku baxaya
war saddexda hay'adooda dawliga adduunyada way ka dhacdaa iminka waddanka la South Africa baarlamaanku waxay ku shiraan Cape Town ama aabay xaruntooda ku taalaaba madaxtooyada iyo golaha xukuumadda horta dawladdu gebigeedu waxay ka kooban tahay saddex hay'adood oo dastuuriye baa leedahay golaha sharci dejinta oo baarlamaankiya golaha cadaaladda oo ah maxkamadihi golaha fulinta oo xukuumadda South Africa ka talisaa waxa uu xaruntoodu ku taalaa base-koodu yahay meesha la yiraahdo Pretoria baarlamaanka waa Cape Town cadaaladda KwaZulu-Natal gobolka hada Pietermaritzburg marka walaalayaal taasuna waa talaabo xagga horumarka loo qaaday war ragga waxaan leeyahay war khaliifadii Ilaahay uu soo diray adduunkan bad qoliyaha ku mashquulsan ma sheegaya qabyaaladda iyo qudunka iyo qoqobka war isweydii oo fikir oo waxa taa war maxaa mas'uuliyad ba ka saaran ma naftaada oo qudun inaad ka fikirtid shacabkaaga Soomaaliyeed mas'uuliyad ba ka saaran aqoonyahanka waxa leeyahay mas'uuliyad badan ka saaran culimada mas'uuliyad badan ka saaran war ummadda qabyaaladda ka uga diga qabyaaladaas dib u dhac bay inoo geysatay khayrkiin bay naga reebtay 30 sanadood bay burbur ku jirnaa wax horumarna waanu ku garaacsanaa waxaan kala rabaa inaan halkan qaar fariin uga diro runtii Cabdisalaan ahaan xaqiiqdii laba madaxweyne baan taageeray intii ay burburkii Soomaaliya kow wuxuu ahaa ninka la yiraahdo Cabdiqaasim Salaad Xasan carta lagu soo doortay waan xasuustaa waxaan ka daawan jirnay Carab Saadka Djibouti channel lahayd baan ka daawan jiray waqti time ima dhaafi jirin runtii waan xasuustaa heesii iyo halku dhigadii oo xitaa markii madaxweynaha loo dhaariyay oo lahaa ceelna uma qodna cidna uma maqna iyo uufu bil ahdi in al ahda kana mas'uula war balanta yaa ka hor yimid Soomaali baa hor istaagtay kuwa maanta hogaamiye kooxeedada hor istaagay kuwa baarlamaanka maanta inoogu jirun baa halkii hogaamiye kooxeedadii bariga ku jira marka kuwa nimankaana waxaan leeyahay dhamaantood ma wada ahay inta dib u dhaca wada ee uu ka yahay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ninkii lagu magacaabo Mahad Cabdalla Awad hadal aan wanaagsaneyn baa runtii ka soo yeeray waayo way ku farxeen Sheekh Baaruud iyo hadalkiisii ummadda Soomaaliyeed oo dhan hadduu shacabka mataliya ma ahayn inuu hadalka buriyo hadalka wax ka yiraahdo marka walaalayaal waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed war madaxweynaha qura Arab maanta ay isu soo taagaysaa waa madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waana sababeynaya xiniyiisu tuso raganimadiisu tuso wallahi kaasay maanta u soo istaageen waa kuwa imika inta soo daba galeen ku Hargeysa maxay kala yimaadeen waanu ogno xogtaan hinaa cidina naga ma xogaalsanaa deegaankan kula soo jeednaa waxba walaalayaal doodna ma ogola waxay ogoliyeen ma jirto Ethiopia Sacuudiga lahaayeen daraadii baan xiriirka ugu jaraynaa gadar markay la hadleen Imaaraadkii Sacuudiga waxaan war qayb Soomaaliya kamid ah baan idin aqoonsan anagu Soomaaliya waxba kala saarmin nasiib darrada ku dhacday arigii xidhnaa xitaa waa taa maanta dadkii baktiyaan waxba looma furin iyagu baan hoos carabi inama kala qaado walaalayaal adduunyaduna Soomaali mid bay aqoonsantay bulshada Soomaaliyeedna waxa leeyahay war midka ogaada waxaad ogaataan inaydun hal ummatihiin fariinta aan Soomaali u gudbinayo waxa weeyaan war Soomaali aynu Allaahayna horta isku xidhno marka koobaad marka labaadna war danteena aynu garanno war qabyaalad iyo qoqob iyo kooxaysi wax horumar inoo keeni maayaan adduunyadana bulshada sideena kala waxbay bedeshaa mas'uuliyadu kaliya xukuumadda ma saarna xukuumadana hala garab istaago way dadaalayaan way shaqeynayaan waxaan leeyahay kastooba waqtigaaga hasinina walaalayaal waqti qoliyaha dawladiidka iyo horumardiidka waayo ma garanayaan qofku waxa jirta mararka qaar qofka bili aadanka uu isagu hagardaamay geysto ninka maanta ka soo horjeeda wanaaga Soomaali iyo horumarka iyo dawladnimada isaga wax isyeelay war horumarka iyo dawladnimada iyo Muqdisho inuu hagaagtay dalkeena nabad noqda Soomaaliga ku dulman kilka shanaad iyo Soomaaliga NFD isagu iska dulman kulay imka kuwa Kenyan baa mala laga dhigay iyo kay Djibouti wallahi kulal ku hayaba u baahanayo ayaa u baahan halkaas la isugu wada imanaya horumarkuna Soomaali kama riixanayo wadankeena nabad noqdo xitaa qoliyaheena qurbaha iyo qaxoontiga walaalayaal in qaxoontiga ku nahay aynu wadankeena iyo horumarka ka qayb qaadanaynayo oo halka ka shaqeysanayna hal intaynu qaxoonti dib umadahan xitaa dibadaha aynu kula noolahay
ayaanu sharaf iyo qadarin kula dhex noolaanayna marka qarankeenu horumar uu sameeyo iminkana tubtii horumarku qarankeenu hayaa waxaan leeyahay horumarku waanu iska soo dabadhacaya ummadda Soomaaliyeed muddooyin badan baan dhibaato ku jirnay walaalayaal dhagaheena yeena siinin kuwa mucaaradka iyo kuwa qabyaalada iyo qudunka ka shaqeynaya Soomaaliyana ha israacdo ha noolaato dhamaantiin waan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.